Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada saaxiibayaal Umusamiira channel. Aad baan idinka mahad celinaynaa sidaad mar walba noogu xiran tihiin iyo kommentiyadiina dhiirigelinta ah. Sidaynu la wada soconno waxaan baryahan idiin soo gudbinaa barnaamij aynu ugu magac darnay wax ka baro adduunka oo aynu maalin walba meel ku soo qaadan doono. Maanta waxaynu ka hadli doonaa jasiiradaha loo yaqaan Bahamaska, inagoo hore uga soo hadalnay jasiiradaha Maldives iyo Hawaii. jasiiradaha fiidiyoyadan ka soo hadallayna linkigooga xagga sare ayaan idiin soo saaraynaa. Haddaba aanu gudagalno fiidiyogeena maanta. jasiiradaha Bahamas waxay ka mid yihiin 700 oo jasiiradood oo yaryar oo ku yaala badda Kariibiyaanka una dhow Kuuba. Ilaa 3 jasiiradood oo ka mid ah ayaa qaar la dego ama lagu dalxiiso. jasiiradahan waxaa gumaysan jiray Ingiriiska ilaa ay madax-bannaanideeda ka qaateen 1973. jasiiradahan waxaa helay badmareenkii Talyaaniga ahaa ee la odhan jiray Christopher Columbus, isagoo halkaana ugu tegay dad loo yaqaanay Lucayan. Bahamasku waxay ku yaalaan waqooyiga badweynta Atlantic-ga, kamana tirsana maamulka Mareykanka, laakiin markaad dhex joogto waxaad moodaysaa inaad dhul Mareykana joogto kolkaad aragto dadku Ingiriisiga siday uga hadlayaan iyo dalxiisayaal badan oo ah Mareykan oo dhex jooga mar walba. magaalo madaxda Bahamas waxaa la yidhaahdaa Nassau, taasoo ah magaalo yar oo aad u degan. jasiiradahani waa jasiirado aad u ammaan ah oo inta badan wax dhiba kuma dareemaysid haddaad dhex joogto, meelaha qaarkood mooyaane, kuwaasoo ah meelaha daroogooyinka lagu gado. waxyaalo badan ayay tahay inaad ka taxadarto haddaad tagto Bahamas, oo ah inaad feejignaato iyadoo ay fududahay in lagu dhaco. dadyowga meelaha xeebaha ah wax ku iibiya inaad aad uga taxadarta ayaa qasaba iyaduna, oo dadka dalxiiska iskaamin ama hab khiyaama ayay ku sameeyaan. hab dhac qarsoodi ah ayayna kugu samayn karaan adoon dareensanayn. tagsiyada magaalada ka dhex shaqaysta kuwa aan diiwaan gashanayn maaha inaad raacdo, iyagoo tigidh qaali ah ku jaraya awgeed. xeebaha Bahamas waxaa mararka qaarkood ka kacda duufaano aad u xoog badan, markaa waqtiyada ay duufaantu jirto lama tago. sidoo kale xeebaha waxay leeyihiin meelo aan la dhaafi karin xagga dabaasha oo xuduud u ah. haddaad dhaafto kalluunka loo yaqaan shark oo aad u halis badan, ama libaax badeedka ayaa kusoo weerari kara, ama badda ayaaba ku jiidan kartaa. haddaba haddaad damacdo inaad dalxiis u tagto jasiiradaha Bahamas, fiisaha aad Bahamas u goosato wuxuu shaqaynayaa 21 casho ood free ku mari karto jasiiradaha waddanku ka kooban yahay oo dhan. Bahamas waxay aad saaxiib dhow ula tahay Ingiriiska oo ahaa waddankii gumaysan jiray. sidoo kale waxay xubin ka tahay ururka Commonwealth-ka. dalxiiska waxay ka sameeyaan lacag ku dhow $3 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanad kasta. jasiiradda Paradise oo ka tirsan Bahamaska ayaa ta ugu fiican haddaad family tahay ood u wadato inaad u dalxiisto. lacagta Bahamian dollarka loo yaqaan ayaa laga isticmaalaa jasiiradahaas. lacagta dollarka Mareykanka iyo Bahamian dollarku wax yar oo sanaati ah ayaa u dhexeeya xagga sarifka. markaa nolosha Mareykanka dhexdiisa iyo ta Bahamasku waxba kuma kala duwana. tusaale ahaan, $100 ee Mareykanka waxaa lagu sarifaa $100.49 oo Bahamian dollar ah. jasiiradahani waxay xoogga saaraan dalxiiska, oo sidaa awgeed waa qaali. haddaad family tahay ama dhowr qof oo aad dalxiis ku tagtaan Bahamianka, $100 ayaad ku cuntayn kartaa halkii mar. haddaba